gudida beelaha dir oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay Hotel Saba ee magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay dagaal ka dhacay gobolka City ee dalkaasi Itoobiya. Dagaalkaasi oo dhaxeeyay Soomaalida halkaasi degan iyo Canfarta, waxaana kulankaasi ugu horreynba ka hadlay Sultaan Cabdiraxmaan Jaamac Dhawan isagoo ku baaqay dadkaasi nabad. haddii aanu nahay beelaha direed ee halkan maanta fadhiya ama hogaankooda ku meel gaarka ah baanu nahay, waxaan halkan maanta ka sheegaynaa in aan ku boorinayno, aan ku dardaarmayno, aan ku ducaynayno in dadka walaalaha la kala badbaadiyo, in dib loo dhigo, in dagaal wiil baa ku dhashay wiil kuma dhashay arrinta ayada in hoos loo eego. waxaan ku dardaarmaynaa nimanka madooba dir ee dhibaatada badan ku dhacday ee gandahoogi baaqay ee ugaas Mustafa baaqay ee dhibta halka maanta ka taagan ee dhibashada joogtada waxaan ku dardaarmaynaa dawladda federaalka Itoobiya iyo kililkaba iyo kililka qaybta kale Canfarta ka soo jeedaba arrinta ayadaasina sumgiyo miisaalaba hoos loo eego. in badan baan runtii aanu ka aamusnayn ilaa imika waxaanu diyaar u nahay haddii la yiraahdo arrinta ayada in walaalnimo iyo wanaag lagu dhameeyo dadka walaalaha ee iska halka dhibto ka dhacayso. waxa kaloon cadaynaynaa in aan haddii ay joogsan weydo oo arrinta ay joogsan weydo ragga halka ku dhimanaya madooba dir inaan dadkii la dhashaynahay. sidoo kalena halkaasi waxaa ka hadlay xildhibaan Maxamed Cabdi Ismaaciil, wasiirka hore wasaaradda ciyaaraha Somaliland Cabdi Saciid Faahiye, ugaas Xuseen Cismaan iyo Sultaan Haruun Sheekh Maxamed. arrin iyo adduun iyo talaba doorkaan ku leenahay ee walaalayaal naga mudayihiin waan qaadan doonaa insha Allah. taa ku bashaaraysta Ciise madooba dir waa niman dira waa niman Soomaaliya waa run, laakiin farba farku xitaa lagu kabaa doorkii walaalnimada ay lahaayeen waa qaadanayna waajibkeeda insha Allah. taasina waa sidaa guud ahaan gobolka City iyo dhulka deegaanka ay Ciise deegaan ee dalka Soomaaliyeed ee Soomaalida Itoobiya ee laga xukumo kilka shanaad baaqi ay soo jeediyeen odayadu ayaan ka jawaabaynaa. jawaabtiina waxa weeyaan waa niman direed, waa niman Soomaaliya. marka hore waa shan wixii aad u baahnaydeen walaalihiin aad uga baahnaydeen wada leeysan waa la idin garab joogaa heliyo hooba walaalaha baaqa soo jeediyay maanta nala hadlayay waxaan rabnaa inaad baaqayga kor u qaadaan. waanu taakiidinaynaa baaqooda waa tixgelineynaa, si gaar ahaan waanu tixgeli doonaa insha Allah haddii la yiraahdo. waxaan leeyahay dadka dagaalkaas inay dawladdu si dhaqso ah soo dhex gasho aad baan ugu baaqayaa ta dhexe iyo tan gaar ahaaneed Soomaaliyeedba. gabagabadina halkaasi waxaa ka hadlay Professor Cabdisalaan Yaasiin, waxaana uu yiri waxaanu kaloo sheegaynaa dadka Ciise ee dirada walaalahood inay garab taagan yihiin iyagoo nabadiina la doonaya waxa la wixii waxtar ah kala ay u baahdaan la garab taagan. maanta 150 sanadood kadib waxa uu suura gashay inay ku dabaaldegaan iyagoo ku dabaaldegay ciidii beerihii u soo baxay goosashadoodii. taana waanu ku taaneedeynaynaa anagoo ah golaha guurtida beelweynta direed waanu ku taaneedeynaynaa. Guuled Maxamed Aadan Guuled Cunaabi, telefishinka Saab, Hargeysa. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil. haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.